jooga lejinkii weynaa walaalkay ilka casaqays aad iyo aad baan ku salaamayaa adarka laxmiya dhala gabadhan maydhiga maduuxa waa gabadha kali ee aniga ayada caanka ee ka imaanay baar dheere Soomaha إلى أي بارد إلى جيجيجا لا جيجيجا هذه مزدوج صعنا البارد ناس مكان هرنا هسي يرتل هاد بارد لوق بيه هسي قدام بارد كبوح والله بقولك بس عشان باي ذا وي هذا بارد قدومي حصول دون ربع أي وهذه أنا بارد المجال كاسو شرفي إيتا إن جيجيجا إسكو عرقنو شرفي كرام ويلك أدير كيدا لي we love you too قالوا ما قبل أضبو قولك يا شا ترى لبيتهم بلاديو جوجو بعد شيء دور بري والله هاشا فول بايسو هاي أنا محلي هاشا اسبتالك هالجي هاي اسبتالك مش قلبته من لسه الجي لك وحكولي مناك كلشة والله جيل كور هدي حام لو حدا حفايد والله العقد أنا لبسوا بالله والله حفايد لو حدا كور ترى اسكيل أنا يري قريتان كبر جيل حما قدينا ما يسوي إيجاد جايز والله مرتوى يوحز متقان جيل حفايدنا وصلنا كور والله مرت جيل رحت مكوكا دي ولي مكوكا دي هاي مكوكا يرد عليه معايا مورستك جيل مرت أرجع هنا مرت تن هو اللي شوكت أنا كبر شو بس أنا والله أي ما شاء الله تن واشدن أنت هاي حلال رانو جاوي هلو فلو فيها وبحسا تامها وبحسا سيدان بكسنا شكريا بكسنا يا شكريا أمبليا رير بالله أنا ويلي كي بهاتي أمبليا رير بالله أنا ويلي كي بهاتي بينكنا على جهارو مجلي نفسا بينكنا على جهارو مجلي نفسا وعنك ورد وأيام بهالي ينترير بالله وعنك ورد وأيام بهالي ينترير بالله يديروا عالنك أيقو وليهيقا هرموضها آمين ديروا عالنك أيقو وليهيقا هرموضها ويقودك والله ينعد أوكوهين آمين ويقودك والله ينعد أوكوهين مرينا بقرتمو يهنو نفسا فضل نوصار سبسكرايب إلهي خيرها قصي وحدك دقاق فرحدة إلهي قصي كسو بير حق صور تيفي أنا ورركي قدام بيجي وهذا الصور عي أيان كاد بقينا يحسد هالك أخو أرقته فنانك عانك أيه إلك عصا قيس إتوس أو إتافسي وفنانك إلك عصا هذا قصو المقالدة شغشغاء ayaa maalmaha foodka inuu soo haya ka soo duuli doona isagoo ka degi doona dalweynaha Jarmalka isagoo ku qaban doona xafladda Puntland ee waxa weeye maalinkaas loo asteeyay inankii ilka casa ahaa oo ku sugan magaalada Shigshiga ayaa soo duuli doona isagoo caana geel ka soo dhargay ilka casa oo in badan ka qayb galay dagaalkii wuxuushta oo uu hogaaminayay haday af iyo waxa weeye si karaba noqoto kulli hubka uu sitay isagoo qudhiiso oo qayb ka ahaa dagaalka markan ilka cas ayaa isu rogay inuu ka qayb qaato xafladda walaalihii ee reer Puntland isagoo ballan ku qaaday inuu ka tumi doono dalweynaha Jarmalka sida halka ku aragto Haykal iyo Maariya oo ah lamaane reer Muqdisho iyo Hargeysa oo nolosha ku midoobay ayaa sheegay inay isku faraxsan yihiin iyagoo waliba ay sheegeen inay moodaan inay hal sano wada socdeen labadan lamaane oo hadda ku nool magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay moodayaanba inay hal sano isqabeen maadaama oo waxa weeye noloshu iyo siday isu jecel yihiin ay aad u hirgashay
sidaad halkaa ku aragto soomaalida maraykanka oo dhiiqa lagu hadlan gasha dumar soomaaliyeed oo fara badan oo reer maraykan ah oo la kufsaday hooyooyin waaweyn oo guryaha loogu soo dhacay dhacdooyin xanuun badan oo kasoo yeedhaya dadweynaha maraykanka tan oo kale maynu arag waa qiso xanuun badan runtii sida aan hayno waxaa la yeedhay hooyooyin aan cidnahayn oo shaqo qabay ayaa markaa guryaha la rabo in loo sameeyo ama waxyaabo ay ka xumaadaan ay raggu kufsadaan u yimaadaan oo dhacdo murug badan runtii sidaad halkaa ku aragto waxa weye qabanqaabada xafladda waxa weeyaan maalinka puntland oo ay wadaan nasteexa indho iyo fanaaniin fara badan iyo weliba gabadhu dhalay siyaad bare oo waxa weye maalmaha soo socda shaaca laga soo qaadi doono sidaad halkaa ku aragto waxa weye tan waa murugada qisada dhabta ah waa muuqaal gelgelay baraha bulshada waa gabadh soomaaliyeed ninkeeda oo aan raalli ka ahayn muuqaalkaas kusoo duubtay baraha tiktok iyada oo weliba dad fara badan oo dhowr milyan gaadhay ay daawadeen 2 maalmood gudahood balse muuqaalkan ayaa noqday muuqaalka ugu falcelinta badnaa ee maanta iyo shalay aadka loogu hadalhayo baraha bulshada runtii ninkaaga oo aan raalli ka ahayn haddaad ku qasabto ninkaaga oo aan raalli ka ahayn haddaad ku qabsabto waxa weye inaad muuqaalada sidaas ugu soo dubto waa iska dareemaysaa waa taagaya ninku qori ayuu noqday mana wacan wararka ayaa afkaleen farqayn doonaa waxaan kuleeyay bilow ilaa dhammaad ila soco sidaad halkaa ku aragto waa dhacdada ugu murugta badan ee muuqaalkeena maanta ugu hadalhaynta badan waa dalka maraykanka oo laga soo warinayo dhacdooyin foolxumo ah oo xaquuqul insaanka ka baxsan runtii dhacdadan xanuunka badan ayaa ah inay yihiin gabdho soomaaliyeed oo muuqaalo la yaab leh soo dubay horta qaar aad u cadhaysan aad u habanaya gabdho waaweyn hooyooyin lagu qabsaday maraykanka dadkii maraykanka oo waxa weye qabyaalad awgeed guryahay deganaayeen qolooyinkooda u kala bixiyey tanoo kale maynu aragnay dhegtiiyo dhabankay isku kay dhigayay afkiibaa shuuqa qabay tanoo kale wax laga aamusi kara maaha soomaalida ku nool maraykanka waxaa la sheegay inay qabyaalad ay mishaha goysay soomaalida ku nool maraykanka waxaa la sheegay inay guryaha ay ku nool yihiin reer hebel ula magac baxeen iyo saraha ay kala degan yihiin mana wanaagsana guri reer dhana degan yahay xaggee lagu arkay guri qabiil dhana degan yahay oo sar ah waa meesha laga soo helay ee maraykanka ah waxaa lagu leeyahay maraykanka oo waxa weeye aan dadkooda ka warhayn soomaalida ku kala nool anigu maan odhan banaankan ka ahay balse muuqaalka itusoo itaabsida ah oo adaga arkayba runtii waxa weeyaan calooliyow gabadhu waxay sheegaysaa in maalmo ka hor ay maqashay oo ay og tahay hooyo da ah oo waxa weye nin madow ah uu ku kubsaday dalka maraykanka ninkan uu ka baxsaday goobta ayaa waxa weeye aan lahayn qofka uu ahaa balse waa nin ay iyada u wacatay waa lagu raas joogaa sidoo kale dadka iyada qudheeda xataa waxay tiri marbaa aniga kubsi laygu dayay oo la rabay in shirqool la ii dhigo ka dhana balse waan ka badbaaday oo wiil walaalkay ah ayaan wacan jiray marka uu wax guriga ka xumaado ee aan rabo in la hagaashiyo sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa ninkii ilka casaqays ahaa oo dalka jarmalka ku qabanayo xafladda 7 bishan lagu qabanayo dalkaas oo waxa weye oo si toosa usoo shaaciyey dad fara badan baa lahaa ku qaban maayo xafladda ma qabanayo oo uu iska leeyahay balse muuqaalka uu soo dubay waa adiga arkayaba sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waxa weye dhacdada kale ee la yaabka leh ee u qaadan waaga ah murugta muuqaalka baraha bulshada qabsaday waa gabadh Soomaaliyeed oo ninkeeda waxa weeye muuqaal ka soo duubaysa qasaba oo aan raalli ka ahay muuqaalka sidaas ugu soo wareegaysa isaguna wuu taagan yahay muuqaaladeeda kale haddaa soo daawato waa wada noocaas gabadhan ayaa dadku ku tilmaameen inay dulmano tahay oo ay ninkeeda dhib weyn ku hayso waxaan kule ka mid ah xaqsoortii fiidiyowgan soo galiyay laakiin uu maaragtay afeefta waxaan ku iri wax badan baan ogahay inaan ogeyn waxaa jira hadda oo aan ka aamusnaa oo rabaa inaan idin sheego waayeelada sida saraha maxamuud saleebaan loo bixiyey saraha loo bixiyey cawareere iyo cawareere qabiil walaalayaal sara la dhaho garacad minnesota qabiilaa loo bixiyey walaalayaal bilinadii ay gaaladu lahaayeen islaamo ayaa lagu wada kufsaday waayeela qaar soomaaliya loo celiyey qaar aan garanayo oo soo booqday isbitaalka soo booqday waxaa kufsaday waxay ahaayeen madowgii
oo maaragtay bulanada ka shaqeynayay nimankii qaar waa la qabtay hadda 2 bilood ka hor islaam baa la kufsaday ma sheegay sarta lagu kufsado laakiin islaamii waa la dhameeyay waa la wada kufsaday taasaan ila socodsiinaya oo ceeb ah waalidkaas awlaadoodii waalidkood bay guri ku ilaaween Mareykanka waa noola ogolyahay diinteena free baan u nahay anigoo qof dhalinyaro waligii Alle ma ogolaanin nin la ii soo diray oo guriga wax ka sameynaya inaan kali ahaado wiilka habrita uu aan wacan jiray ama banaanka uga bixi jiray mar walba dad baan u yeeran jiray waayeeladeena dad uma yeertaan waxa la iska dhigaa wax korontada sameynayo kale wax telefoonka sameynayo kale telefoon baa lagu la soo haraa way yaqaanaan waayeelada open the door waad ogtiin hadda ka hor xataa bangiyada markay aadaan waayeeladii waa la dilay ama Soomaali hadda shaqaan ah ama islaantii u dambeysay wajiga laga bedelay gabar 18 jirto madow waa dishay lacagteeda lagu dilay waxa la ogyahay waayeelada inay guriga lacagta dhigtaan leen dawladda ka qarinayaan bangiga lacag ma dhigtaan lacagahaas loogu soo qaar laga dhacaa qaar dahabka lagu dilaa islaamaha markay lugeynayaan waa laga waaniyay hadda group isku raacan oo kali markay ahaayeen waa la dili jiray madowga waxa ka dhaadhacsan lacagta way iska wataan waayeeladeena meeqa surka la gooyay odayadii meeqa kooma galay waxa soo dhan cid ka hadasho malaha